waraxmatullaahi wabarakaatu. waxa weeye 29 July waxaanu furaynaa garoonka mar labaad caalami oo dib habeen lagu sameeyay oo maanta furi doona insha Allah taala. waxaanu mahad celinaa dhammaan hantiilayaasha garoonka dib noogu qurxiyay noo sameeyay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin baan leenahay. maanta oo aanu ku ciyaari doono waxay nagala soo qayb galay laba oday oo gobolka Togdheer ah, Xuseen Wacaf iyo Yaasiin Axmed Olol, oo indhaweydba gobolka Damaashaad iyo iyaga ku soo dhawaada waan leenahay. garoonkan aad iyo aad baan ugu bagnaysay waxaan in lagu sameeyay kulli macmiish baan ahay waanu sii noqon doonaa. garoonka waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin hantiilayaasha. kullana qariiban ka maanta igu horeysa, laakiin waxaan u mahadnaqayaa maamulka iyo shaqaalaha iyo qolada saxaafadda. aad iyo aad baan ugu ducaynayaa qolada leh, Ilaahay u barakeeyo leeyahay. waa ganacsiga deewaana horumariyeen kulli dhaqaalaha gale. waxaan leeyahay Roob Burcaan ku soo dhawaada una hura dhaqaalaha magaranaysa gobolka iyo qolada ganacsigaba. marka aad iyo aad baan salaamayaa. waa markii labaad ugu horeysa garoonka ku ciyaaro. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Assalaamu calaa rasuulillaah. maanta waxaan ku sugannahay garoonka caalamiga Burco oo runtii ahaa garoon hore u jiray laakiin dib u habeen lagu sameeyay oo maalmahanba shaqo ka socotay dib u habeen. marka anigu Xuseen waan ka yarna si fiican oo maalin hore aan ku ciyaaray. runtii waxaan arkay in standardkiisa kor loo qaaday oo laga dhigay garoon caalami ah oo standardkiisu aad u fiican yahay. marka ciyaartooyga waxa la garoon fiican ba soo kordhay oo hore u jiray la habeeyay la qurxiyay. ciyaartooyga waxa la ku soo dhawaada reer Burcaan waxa la garoonkan oo garoonkiiniye insha Allah taala sida dadkaas ugu tabceen hantiilayaasha inaguna waynu celinaa. inagu baynu shaqaynayeen waan ku faraxsanahay inaan garoonka u ciyaarayno. aadna u mahadsanyihiin hantiilayaasha ciyaartooyga iyo qolada saxaafadda ee meesha ka shaqaynaysa time soo horta. aad baa u mahadsantihiin. Bismillahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. kulli maanta qolada maxamed ayaa yareer waxa sharaf iyo farxad noo ah inaanu Yaasiin iyo Xuseen ka dhinac ciyaarayno galabta garoonka oo baarigayna insha Allah. oo dilaa ka dhig waxaan leenahay qolada ganacsatada Allah idin barakeeyo maalkiinaas. suwacan baa loo qurxiyay waana dilaa ka dhig dib casriyeyn ballaaran baa lagu sameeyay. kulli garoonku waa garoon magaalada martikeeda ku yaala oo dhawaanba wax sheegtay garoomada kale intaas u dheer yahay. Cusayb iyo dilaa ka dhig dib casriyeyn oo lagu sameeyay. farxad bay noo tahay kulli inaanu ku ciyaarayno qofku isagaan bas iyo dilaa ka dhigayo taxi toona raacin. dhammaan waan bogaadinayaa bahda sportska. waxaan leeyahay ku soo dhawaada garoonka caalami. aad iyo aad baan khiyaarta u salaamayaa. waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. oo dib casriyeyn iyo dib habeen lagu sameeyay oo kaarbadkii roogii iyo meel walba dib habeen lagu sameeyay. ciyaartii furitaanka waxaan nasiib u yeeshay inaan ku casuunay ciyaartoydii waaweynaa ama legendiskii gobolka Yaasiin Axmed Olol, Xuseen Wacaf, Beder. ayaguna aad bay u nasiib badan yihiin oo waxay ahayd nimankii dhaska ku ciyaari jiray oo waqtigoodii badnaa ku soo qaatay garoonku isagoo dhasta oo maanta markii ay yara gaboobeen ku faakahaysanaya roog. waa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. dhalinyarada kalena waxaan leeyahay garoonkii dib baan u casriyeynay ee ku soo dhawaada mar labaad. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin.